السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaad asxaabay waan kala baahnay in badan baan kala maqnayn sidii rabadaanta loo soo galay muuqaal ma soo dhigin inkastoo soo dhigay muuqaala aan ugu talagalay qisooyinka animeyga waliba aan ka sameeyay anime AI bal xaaladiina ka warrama magaalada ka soo miisana comment-ka noogu soo qor hadaba maanta asxaab animeygan wuxuu ku bilaamay wiil loo yaqaan Lagumo wiilkaas wuxuu ku jiraa god cidna uma dhawa wuxuu yiraahdaa cidii maqlis miya jirtaa miya noolay miya dhintay markaas ay soo su'aalaas weydiinaya ay wax ka soo horbaxa bahal wiil ama wax shay markaas bahalkii ula hadla wuxuu ku yiraahdaa walaalo soomanahay ee adiguna soomantahay ee cunin laakiin bahalkii waxa suma joojiyo wuxuu ku yiraahdaa xal suxurtay dhaaftay haddana kugu qoreecanaya markaas bahalkii xanaaqsan wuxuu isku dayay inuu wiilkii dilo laakiin waxa dhacay in soo baxa bahal kale bahalkaas wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo bahalkaasna ku yahay kii la dagaalamay wiilka yar wuxuuna ku yiraahdaa anigu waxa iman suxuuran xitaa ma afuran ee orad aad jahanama intay labadooda isku mashquulsanaayeen wiilkana nagu wuxuu yiraahdaa fursad habiya aan soo martay labada mid kamid ah hadii laga adkaado kullinka kalena ay cunayaan ee hadda wayna ka faa'iideystaa wuxuuna bilaabay inuu soo carado laakiin waxa dhabalkii weynaa inuu dareemo oo wiilkii darbad ku jiibo taasoo sababtay inay gacanta ka go'do wiilkiina waa qayliya oo aad ayuu naxaa wiilkii raa miskiinka ahaana wuxuu ku dhacay dhulka soo dhiigiisa qulqulayo markaas wiilku wuxuu yiraahdaa isdhiibi maayo gacan baa hadda laga jaray ee qoorta laga jaraya haddaan iska sii badbaadin waayo wuxuuna isticmaalaa sixirkiisa kaasoo loo yaqaan alchemy kadib sixirkaas markuu isticmaalo waxa uu dhisaa derbi ama gidaar kadibna gidaarkaas ayuu dhex galaa bahalkina wuxuu isku dayay inuu gidaarka jabiyo laakiin ma awoodo oo wiilkiina waxa dhahay xagaas inuu ku badbaado bahalkina uu daalaa wuuna iska laabtaa wiilkiina waa miir daboolnaa sababtoo ah gacantiisa dhiigga qulqulay ayaa sababay inuu wiilkaas miir daboolmo haddaba wiilka meesha maxaa keenay godkana sababtu indayay maxay tahay bahaladan ayay ahaayeen qisada animeyga ku fahmi doonta asxaabay ee fal muuqaalka like saara haddaba si aad u fahanteen qisada animeygeena ha u laabana 10 saacadood يعني 10 saacadood ka hor ha u laaban inta wiilkan ahdaadkana ma dhacdooyinka la kulmin wiilkan Nagamu iyo saaxiibadii waxay markii ugu horeysay soo galeen godkan waxna ka raadinayeen sixirkaas markaas uu sheegay hogaamiyahoogu oo ku yiri qofkii helaa wuxuu yeelan doon awood iyagoo iskaashanaya ay waxay soo galeen godkii wiilkan Nagamu wuxuu ahaa ka ugu daciifsan maadaama awoodiisu tahay awood loo yaqaan alchemy taasoo kaliya dhista wax ama wax jijibin karta mar walba bahaladan isaga ma soo weerari jireen oo ma lahayn awood iska difaaco haddaba kooxda markaas waxay ka koobnaayeen 15 qof wiilkii Nagami iyo kooxdiisa isagoo godkii dhex marayaan ayaa waxay arkaan dhagaxii sixirka ahaa ee loo sheegay kadib dhagaxii wiilka soo qaas dhahaa laakiin meeshaas waxa ku jirtay khudca ama khiyaano oo waxa loo dhigay trap ama af Soomaali waxa loogu dhigay dabinkaas uu wiilka ugu dambeyn ku dhaco kadibna godku waxa ka soo baxay bahalo asxaabtii wiilka la socdayna way carareen oo waxay ku yiraahdeen iska difaaci kartid anaga iska difaaci kareyni adoo daciifina si iska difaaci yaa ibnu laciiba asxaabtaas oo kale maxaa ka xun markaas kooxda cararta waxay ahaayeen 13 qof waxa ka haray 2 qof oo wiilka Nagamu iyo gabadh loo yaqaan Kori taasoo markii hore dhulka ku dhacay soo saneed gabadh Kori waxay soo sarkaadaa waxay isticmaashaa sixirkeedii ugu dambeyn way ka adkaataa bahaladii waxna soo gaadhaa saaxiibadeed laakiin wiilkii Nagamu ayaa xaga ku go'doonsamay oo ku labada bahalo u leeyimday oo isku leenay mar dhow oo ay lahaayeen aniga ku afuri adiga ku afuri sorry asxaabi raalahaada waxa laxdadeed baniga soo ilaawi laxdadaas oo nigmeenaad ku xibra qaadateen badan tahay waxa maqli jiray mahmaa ah saaxiibkaas ka kun mar intaas ka kartay cadowgaaga hal mar wiilkii Nagamu isagoo isku dayay inuu saaxiibadii soo gaaro ayaa waxa khiyaanay mid kamid ah wuxuuna yiraahdaa kan xuna daciifkeen awood lahayd waana u dhignaa bahaladan iska mashquulina wuxuuna ku soo tuuraa darbad wiilkiina waxa dhayn darbadii ku dhacdo oo ay boondadu ku taagnay kala jabto wuxuuna ku dhacaa godka hey bis niya saxaabi bisad ay kreeyay xaafadan bisadan iyo qabsan ku dhaca kiin ka soconay wiilka markuu godka ku dhaco waxa ku soo tixtixtay biyeer taasoo kicisa biyahaasna waa biyo legendary water loo yaqaano oo biyaha isticmaalin asaadiirtii hore kuwaasoo sixir ah kuwaxna daweeyaan dhaawacdiisii kadib wiilku wuxuu soo eegaa meeshii biyo ka soo tixtixeen wuxuuna ogaaday in biyaha yihiin biyo legendary water loo yaqaanay ama asaadiirul miyaa markaas wiilku waxa soo xasuustaa والله عدكاس أصحابي وهريان ما waxaan edit garay yoo yaro xunba keeday oo soo xiro ugu dambeyn haddaba ku socon animegeena wiilkii wuxuu soo xasuustaa dhacdooyinkii soo maray saaxiibadiisa ay la dhaqmeen kadib waxa dhan wiilkii qalbiga ka xanuunsado oo xagaas asxaabta uga qaado ciil iyo cuqdad wiilkiina wuxuu isweydiiyaa sababtan xaga u nimday maxay tahay meeshan indina waa xagee wuxuuna yiraahdaa aniga ee kooxdaydu waxaan soo galnay caalamkan halista ah iyagu waxay wada yeesheen awood heer sare marka laga reebo aniga maxaa iga khaldan masoonkan san ii galaya mana rabo inaan halkan sii joogo waa meesha uu ku neef qabatoobay waxaana rabo inaan ku laabto gurigeyga markaas wiilku wuxuu maqlaa codkaasi oo ku leh seebaad u bixi kartaa adigoo ka hortaagay bahalkii markaas wiilku wuxuu yiraahdaa xitaa haddaan Soomaali soonkoon u jabinayaa oo waan la dagaalami doonaa oo waan dilayaa isagoo qoslay xamaasaysan ayaa xubnaanu kor sare kaco
wuxuu ka soo baxaa godkii wuxuuna soo qabsadaa ama soo ugaarsadaa laba yey oo ah yeyda sixirka loo yaqaano ama di'bu sixir ama wolf magic isagoo isticmaalaya sixirka labada yey ayaa wuxuu ka helaa xagaasna yacni bayskoolado ama xabad ama rasaas kadib rasaastii wuxuu bilaabay la dagaalamo bahalkii ugu dambeyn bahalku ka guulaystaa kadibna wiilkii Nagaami wuxuu ku yiraahdaa aniga isku dayaysa inay cuntiin soo maaha anaan tijaamiyo hilibkiina kadib hilibkooda wuxuu bilaabay inuu cuno laakiin wuxuu dareemaa xanuun oo caloosha ayaa xanuunta markaasaa wuxuu isku dayaa inuu cabo biyaha sixirka laakiin cudurkii ayaa kusii kordha oo calooshan aad ay usii xanuuntaa taasina waxay u sababtaa inuu miir daboolmo wiilkiina markuu soo miirsado wuxuu arkaa isagoo murqa yeeshay timihiisiina isbedeleen oo yacni noqdayba nooc kale kadibna baashara wax ka eegi jiray ayuu eegaa marka horena kala soo baxay baaskoolada wuxuuna arkaa inay awooddiisa korodhay oo hadda yahay nin awood badan intaasoo keliya ma aha sidoo kalena wuxuu ogaadaa in hadda u yeeshay awooddaas oo ah awoodda barqiga ama danab sidoo kalena halkaas wuxuu ku bartaa si loo kala garto waxyaabaha feyga ah iyo waxyaabaha runta yacni dhagaxyada feygay ku jiraan awooduhu iyo dhagaxyada beenta ah kadibna wiilkii wuxuu baaraa godkii wuxuuna ka arkaa bayskoolad sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu sii baaro wuxuuna ka arkaa rasaas mar kale kadibna awoodii wuxuu isticmaalaa bakayle kadibna bakaylahaasuu dilaa markuu dilo bakaylihii wuxuu rabay inuu ka helo awoodda uu leeyahay bakaylahan taasoo yacni orodka iyo booditaanka uuna ku guulaystaa inuu helo awooddaas kadibna wiilkii xamaasaysan ayaa wuxuu idhaahdaa waa inaan qaata bayskooladayda iyo biyeer kadibna wuxuu soo aadaa dhankii bahalka wuxuuna soo istaagaa dhabarkii bahalka kadibna baarka wuxuu bilaabay inuu wiilka darbad ku jiido oo ka tuuro bayskooladu watay laakiin wiilkan waxaa soo qorsheeyey oo wuxuu isticmaalaa bambada yar afengeesh loo yaqaano flashbank kadibna bambada ay kusoo dhiftaa bahalkii wuxuuna ka gooyaa gacantii markay gacanta ka goodo wuxuu soo aadaa dhankii gacantuu aaday kadibna gacantuu bilaabay inuu cuno gacantii bahalka isagoo ka argudanaya wuxuu bahalka ku sameeyey isaga markaasaa wiilkii waxaa dhacay inuu godka ka soo baxo intuuna godka ka soo bixin ayaa waxa uu gaaraa laba qaraar ama laba go'aan labada go'aan oo ah inuu yacni uu ka arguto kii khiyaanoolay ee awoodda kusoo tuuray markuu rabay inuu godka ka soo baxo ee boondadu ay la jabtay iyo inuu gurigiisii si nabada ugu laabto wiilkii Nagaamina waxa uu rudsadaa biyo iyo qalab wuxuuna u dhaadhacay meel madow oo god ah isagoo isticmaalaya iftiin uu wato ayaa waxaa soo weeraray bahal khatar ah oo garabka ka dhaawacay laakiin halyeyga Nagaami waxa uu isku dayay biyihii mucjisadaha inuu isku daweeyo wuxuuna isticmaalay bam iftiimeed oo uu bahalkii ku dilay wiilkii Nagaamina waxa uu sii wataa dilka iyo cunista bahalada si uu sii xoogaysto laakiin bahaladii waxay noqdeen kuwo daciifiina oo isaga waxba ugu tiri waayaan ama waxba ay ka tiri waayaan oo lama dagaalami karayno maadaama awooddiisa ay korodhay si uu kolba mid ula dagaalamayay ugu dambayntiina waxa uu gaaray albaab weyn oo xidhan kaasoo baahnaa dhagaxyo crystal ah si uu furmo markuu isku dayay inuu awooddiisa ku furo waxaa soo baxay bahalo ilaalinaya albaabka Nagaamina si xirfad leh ayuu u laayaa bahaladii isagoo helay dhagaxyadu ku furi lahaa albaabka si uu galo meel qarsoon dhanka loo soo laabana gabadhii Koori asxaabteeda Koori xilligaas waxay ku jirtay xaalad murugo leh aad ay ugu xumeed wixii ku dhacay wiilkii Nagaami waayo waxay banaan u qaaday inay isaga badbaadin doonto balse isaga ayaa badbaadiyey oo godkii ka badbaadiyey inay ku dhacdo midaas darteedna wuxuu sameeyey tadxiyo oo isaga ayaa naftiisa u huray kadibna uu ku dhacay godkii markii ay Koori soo toostay ayaa waxay weydiisay oo saaxiibadeedii To waxay ku tiraahdaa halkeebuu ku jira wiilkii Nagaami To ayaa si murugo leh ugu jawaabtay waxayna ku tiraahdaa nasiib daro ma garanay meel uu ku jiro wiilkaas mana awoodin inaan badbaadin karno oo boondada ayaa la jabtay iminkana wuxuu ku jiraa godkaas halista badan ay bahaladu ka buuxeen gabadhii Koorina hadallada saaxiibteed ka soo yeeray waa ay u adkaysan kar weyday waxayna bilowday inay oyso waxayna go'aansatay inay godkaas soo raadiso oo ay wiilkaas soo badbaadiso laakiin gabadhii To ayaa hor istaagtay waxayna u sheegtaa inay iyadu 5 maalmood miir la'ayd oo ay hadda awood lahayn iyo in meeshuu wiilkan ku dhacay uusan qofna geli karin ama yacni uu kasoo badbaadi karin hadduu hal mar galo dhanka kale wiilkii Nagaami waxa uu galay meel u eg sida xabsi ah halkaasna waxa uu ku arkay iftiin weyn iyo gabadh meesha ku xidhan gabadhu waxay bilowday inuu wiilka ka codsato in meesha uu ka furay laakiin wiilka dhag jalaqo ma siiyo markaase gabadhu waxay ku tiraahdaa waan ku barayaa walaal iga fur meeshan anigaba waa lay khiyaamay oo waa lagu xidhay si kasoo ma imid meeshan ama yacni dembiilad ma yihi oo meesha layguma xidhin wax dembiyo aan galayna ma jirto aniga khiyaano ayaa meesha laigu geliyey fadlan iga fur isla markuu wiilka maqlay ereyga khiyaano wiilkii Nagaami wuxuu soo xasuustay isaga waxa ku dhacaysa loo khiyaamay markaas wuxuu bilaabay gabadhu soo dhawaado oo uu dhageysto waxa gabadhu ka sheekeynayso gabadhu waxay u sheegtay in iyadu tahay masaasata dimaa ama vampire ay tahay iyadu waxayna ku tiraahdaa anigu asal ahaanteed waxaan ahaa vampire waxaana lahaa awood aad u badan waxaana ahaa gabadh amiirada boqorada laakiin adeerka ayaa damacay inuu boqornimada iga qaato kursigii ama yacni carshiga ku fadhiisanayna isaga ayaa la wareegay saas darteed meeshan ayuu igu xidhay igaga tegey cidda hadda cid garanaysana ma jirto fadlan waxaa kaa codsanaya inay caawisid haddaba wiilkaas muu caawin doonaa qisada nimeegayntiisa kale ku arki doontiin
maanta intaas inoogu egta asxaabi xalqadaheena maanta fadlan muuqaalkuna cajabay like saar subscribe saar maca salaama hoo shuufo ku fiyey xalqa jaaye